يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا وحليف العلم والحكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu sharxaynaa xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dhaxalkii nebiga ee uhi xaqu lmuslimi cala lmuslimi khams. riwaayinka qaarkood xuquuqda labada qof ee muslimiinta ay isku leeyihiin waa 5 arrimood. 5 arrimood ayaynu mid mid usoo qaadan doonaa. ka koobaad waxa weeyaan ifshaa assalaam, رد السلام أما إفشاء السلام، سلامته إلا باهيو هي بريدة إسلامية. أما هدي قفك سلامته إسلامية الله سلامه إنه كقاضه مركا أحكام الصلاة سلامته. أما بريدة إسلامية هي ويبدنتها، لكن لو قضب إنه كسر قاضن دورنا قضب كأوهر رأيه إنه إسلام كودي رجلي إن dadka muslimiinta ay isku salaamaan salaanta islaamiga ah ee quraanka iyo xadiidku inoo jideeyay. waxaa ka mid ah aayadaha dhiirinaya salaamta qowlullahi tacaala, ilaahay baa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu, dadkii ilaahay rumeeyow, laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. dadkii muslimiinta buu ilaahay yeedho wuxuu yidhi hagelina guryo aan kuwiina ahayn. jeeroo 2 arrimood isku dartaan, in gurigii fasax weydiisataan ma soo galaa, iyo in assalaamu calaykum tidhaahdaan. qur-aanka kariimka ayaa ilaahay uu taa ku caddeeyey. xikmaddana wuu sii raaciyey oo waxau yihi taasi way idiin fiican tahay oo way idiin wanaagsan tahay ilaahay agtiisiiyo ummadda agteedaba, waana ajri badan tahay. inaa wax ku qaadataanna waa laga yaaba wacdigaas. aayad 2 oo suuratu nisaa ku suganna ilaahay isagoo inagu dhiiri gelinaya salaamta in la baahiyo waxau yihi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha ina allaha kaana calaa kulli shayin xasiiba. haddii la idin salaamo mid ka wanaagsan salaama. assalaamu calaykum qofka ku yidhi wacalaykum assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa u raacay, taasaa ka wanaagsan. iyadiina waa celin kartaan baa ilaahay uli, oo qofkii ku yidhi assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waad odhan kartaa, laakiin mar walood ka kordhiso ajrigaagaa badanaya. axaadiidta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaynu soo qaadanno ee dhiirinaya ummadda islaamku inay bariidada isugu duceeyaan. bariido macnaha waa salaamteenna af soomaaliga marka la eego, laakiin tani waa mid duco wadata. halka innaga la odhan jiray iska warramayo
maxaa ku kaakacdeen ma la soo toosay maxaa la sheegay tani waxa weeye duca ayaa la socota nebigu markuu ka warramaya waxa uu tilmaamay inay nala bilaabantay abuurkeenniiba salaamtu rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam markuu ilaahay abuuray nebi aadam dherarkiisu wuxuu la eegaa 60 dhudhun 60 dhudhun buu la eegaa laga yaabo inuu kiisa yahay markaasaa wuxuu yihi idhab fasallim calaa haaulaa'i nafarin min almalaa'ikati juluus orod aadamoo soco kuwaas soo salaam kuwaasi waa kuwe waa malaa'ig halkan fadhido oo kooxa wuu u tego uu soo salaamay marka abuurkeennii bay la bilaabantay hoyaatinkeena dambena way nala hoyanaysaa salaamtu iyo naga hadhi mayso adduunka saynu usii wadno oo ahlu jannaha ilaahay markuu ka warramay wuxuu ihi taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam bariidadoodu waxay isku salaamayaan markay jannada tagaan ereyga salaam salaaman salaaman salaamun ilaahay baa salaamaya malaa'igtaa salaamaysa iyaguna ereygaa wanaagsan bay isku salaamayaan salaamtu islaamku siyaabo u dhiirigeliya waxaa ka mid a inay tahay calaamadda dadka mu'miniinta ah iimaankooda tusinaysa ama waxyaabaha iimaanka u baahinaya nebigu waxa uhi laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabuu awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum calaa macna alxadiid jannada geli maysaan jeeroo ilaahay rumaysaan ilaahayna rumayn maysaan jeeroo isjeclaataan dadkiibu inagu inala hadlayaa nebigu waxaa isku jeclaanaysaan ma idiin sheegaa buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam afshu salaama baynakum salaamtu dhexdiina ku baahiya qofba qof buu salaamaya bulshada way iswada salaamaysa waa dad iswada jecel waxaynu sii raacin lahayn intaa aadaabta salaamtu aadaab bay leedahay aadaabteeda waxaa kow ka ah dadku inay siday u kala duwan yihiin isu salaamaan maalan qofkii yaraa kii weynaa buu salaamayaa kii soconayeyna kii gaadiidka fuushanaana kii dhulka joogay buu salaamayaa kii lugeynayna kii fadhiyay buu salaamayaa kooxdii yaraydna ama qofkii keliyahaana dadkii badnaa buu salaamayaa saasaa loo kala leeyahay salaamta adaabteeda waxaa ka mid a in tikraar lagu sameeyo haddii qofkii aanu maqal mar baa loogu celinayaa 2 jeer baa loogu celinayaa in kor loo qaadaana way fiicanta oo hadduu qofku aayar hoos u yidhaahdo inu dadkii maqashiin sax maaha waanu kor u qaadaa dadka maqashiiya salaamta aadaabteeda waxaa ka mid a an yusallima calaa man carafa waman lam yacrif inaanay salaanta qabyaaladi gelina assalaam lilaah salaamta ilaahay baa iska leh saa daraaddeed dadka muslimiinta ee kusoo aan gaalad ahayna islaamka waad salaamaysa qofkaad garatiyo kaanad garanba halka dhaqankeenu yahay inaynu salaamno unka aynu garanayno salaamta dadka la salaamaya waxaa ka mid a caruurtii yaryaray anas ibnu malik ciyaal buu soo maray wuu salaamay facala dalika rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy nabigaa sidaa sameeyey marka ilmihii yaraa kolka qofkii weynaa intuu isdul taago u idhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wuu ku farxayaa inuu nin weyn yahay ama qof weyn yahayna wuu isu arkayaa qofkaana dareen gaara u yeelanayaa ma ilaawayo salaamta marka la eego guriga kolka la gelayo gurigaaga iyo guryaha kaleba way fiicantahay inaad salaamto xataa bay leeyihin culimadu haddaad guriga keligaa u hoyanayso assalaamu calaykum markaad gasho wacalaykum assalaam adaa iska qaadaya ilaahay baa wuxuu uhi faidaa dakhaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan ayiba markay guryo gashaan naftiina salaama buu ilahay yidhi waa salaam barako badan oo qiimalahoo fiican ilaahay baa ammaanay subxaana wa tacaala salaamtii marka qofku uu sii gelayo aan idhaahno markuu cid u gelayo iyo markuu ka baxaya labadaba salaamtu way jirtaa nabaday uun ha odhanoo gacanta ha taagin keliye waxa weeyaan markuu qofku cid usoo galaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi buu leeyay markuu sii baxayo sagootinta shayga aynu idhaahno salaam baa la isku sagootiyayaa isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam taa ka hadlaya wuxuu uhi falaysat iluulaa
بأحق من الأخرى. السلام عليكم تهوري كما مضنا تضمبئ اللي اسكو سقوتيه ودقن كيف عنا هدي اللي سويدية السلام ثم واجبة ما سنة علماء الإسلام waxay u badan yihiin ama ay isku waafaqsan taqriiban tahore inay sunno tahay tadambana ay waajib tahay waxa kale isweydiiyaan ruuxii dumarka ahaa ee ajnabiga ahayd iyo ninkii ma is salaamayaan way is salaamayaan haddii fitna laga aamiya oo macnaha wax dambi ah ay ku dhacaan iyo sina iyo waxa hadii laga aamin yahay way rag dumarku salaamaya gayaankiisa dumarkuna rag ay salaamayaan والنبي قبوا السلام عليه الصلاة والسلام أحاديث قاركود وحي ديديان إن سيدا الله يسو سلامه والنبي السلام فرنشي بكت المامي هذا روح على مركة قاركود دمرك إنه سيدا وسلامه تاو حي كوت جمعيان علماء إليهين هدي مركة قعنت تاكتو السلام عليكم ورحمة الله أذراعي سوا صح لكن السلام عليكم هدانا دورنا قعنت تاكتو تاسوا سلام فرنشي وصح ماها وحيلتها إنتاس هدي الله ينقو أنفع الله ينقو أنفعه وينوغو فلانتهاي نظامكي بريدة إسلامية إلهي نوحا كبرية دمانتين إنو نقو أنفعه إننا وافتشيه أجري قيدي الصواب كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه بالإفلاس والعدم وصلاة الله خالقنا تتغاشى سيد الأمم أحمد